ciidanka booliiska ee jamhuuriyadda Djibouti iyo ciidamada gaarka u tababaran ee waddanka Faransiiska ayaa maanta fuliyay howlgal tijaabo ah oo ujeedadiisu ahayd haddii ay dhacdo in argagixiso qabsato goob ka mida dalkan sidii looga samata bixin lahaa loona badbaadin lahaa nafta iyo hantida ummadda. howlgalkan ayaanay labada ciidan waxba la hadhin iyagoo isticmaalayay dhammaanba waaxaha khaaska u ah howlahan oo kale marka ay dhacaan. howlgalkan ayaa waxaa buddhig u ahaa labada kooxood ee u tababaran la dagaalanka argagixisada ee ciidanka Faransiiska iyo ciidanka booliiska. kooxaha isticmaalayeenna waxaa ka mid ahaa xoogaga miinada, baydariinta liishaanka dheer, eyda iyo dhakhaatiirta iyo kalkaalasooyinka caafimaad. markii howlgalkani soo dhammaaday ayaa waxaa saxaafadda la hadlay afhayeenka ciidanka booliiska gaashaanle Cumar Yuusuf Cumar Casood isagoo ka hadlaya howlgalkan iyo sidii u dhacayna waxa uu yidhi horta ta u horeysa waxaan doonayay inaan inii xaqiijiyo howlaha halkan ka socda maanta inay ahaayeen howlo tababar sidii haddii ay waxyaalahaas oo kale ay na soo wajahaan ama ay wajahaan dalkayaga sidii aan uga hortagi lahayn annagoo si midaata gacan isku haysana ciidamada Faransiiska ee degan Djibouti. howlahani waxay u dhaceen haddii aan runta inii sheego sidii aad u qurux badan sidaad arkaysiinna haddee toole waa gebagabadii baa lagu jiraa. howluhu halkii aanu doonaynay iyo halkii uu rabay taliyaha guud ee boolisku waxaan u maleeyaa inaanu gaadhnay. markaa waad mahadsantihiin. khibrad ahaan maxaa laga faa'iidayaa baad malaynaysaa ay ciidanka booliiska Djibouti ka faa'iidayaan qorshayaasha ama exercise-da noocan oo kale ah? waxaad ogaatiin kolleyba haddii la samayn waayo training haddii la samayn waayo haddii maxay hayday tababar uu jiri waayo maalinta ay dhabtu timaado inay xumaan karto oo ay godolool badan ay yeelan karto. doorkan oo quraal la qabtay mise horena waa loo qabtay dibna way jiri doontaa. horeyna waa loo qabtay si aad ogsoontihiin baan u malayn waa loo qabtay hore oo dibna waa loogu celin doonaa wax joogsanayna ma. barnaamijkan tababarada ay booliisku had iyo jeer la sameeyaan Faransiiska ayaa ah mid joogto ah oo inta badan sanad walba la qabto waxaana ka qayb gala markasta ciidamada Faransiiska iyo ciidamada kala duwan ee Jamhuuriyadda Djibouti. Ali Ahmed Rabi Ali Sanyo, SABC TV, Djibouti.